ma dareentaa mar walba rajo la'aan iyo degnaan la'aan ma is aragtay in badan adigoo la nolol walwal iyo walbahaar joogto ah ma kugu adag yihiin cibaadada inaad macaansato khaasatan salaada xal ma u weysay inaad hesho xasilooni iyo farxadda noloshaada mar walba aad isku daydo isbeddel dhabaha inaad samayso xaalad adagna aad ka baxdo naftaada iyo shaydaan ma kaa adkaadaan haddana ma ku soo laabataa caadooyinkaagii xumaa ma gaartay heer aad ka shakiso naftaada iyo awoodahaaga naftaada si ay culayska iyo cadaadiska saaran isaga dejisay ma kugu qancisay in farxadda dhabta ah ee noloshaada aad helayso keliya marka aad qurbo tagto ama marka aad lacag yeelato haddii aad la dhiban tahay walwal iyo walbahaar rajo xumo iyo in aadan haysan noloshaada farxadda dhabta ah muuqaalkan waa xalkaaga waxaan kula wadaagi doonaa xalka ugu weyn lagu helo degnaan iyo xasilooni iyo farxadda nolosha sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa 5 xeer waaweyn haddii aad samayso aad ku noolaan doonto nolol farxad leh dhammaadka muuqaalka waxaan kula wadaagi doonaa talada ugu qiimaha badneed ebed lagu siiyo nala sii joog ilaa dhammaadka muuqaalka waxaan ahay Jaabir Cusmaan JB halkan waa madashiina xikmaso haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo dir YouTube-keena subscribe saaro muuqaalkana like saar si uu dad badan u gaaro una sii shirgaray asxaabtaada haddana ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta daawadaha sharafta leh xalka ugu weyn lagu daaweeyo walwalkii walbahaarka laguna helo farxad dhammaystiran inta aan kula wadaagin ma is weydiisay weligaa sababta aad ugu nooshahay mar walba nolol ku dhisan walwal iyo walbahaar kalsooni daro rajo xumo hanyiri iyo midda ugu daran oo ah murug joogto ah mar walbana farxad oo dhan sababta ay noloshaada kaga maqan tahay in aad meel fariisato buuq iyo dadka oo dhan aad ka dhex baxdo isweydii su'aashaas naftaada jawaabta saxda ayay ku siin doontaa iyadoo kuu caadhifoonin runta ayayna kuu sheegi doontaa naftaada waxayna kuu sheegi doontaa wax walboo ka qaldan noloshaada daawadaha sharafta leh su'aalahan si dhab kaga jawaab inta aan xalka dhabta ah kula wadaagin su'aasha koowaad sidee waay xiriirka aad la leedahay Allah subxaanahu wa tacaala su'aasha labaad sidee isku tihiin salaada su'aasha saddexaad dabeecad ahaan dadka sidee ula dhaqantaa su'aasha afaraad waalidiintaada sidee ula dhaqantaa haddii aad ka maqan tahay xitaa qurbaha aad joogto si fiican ma u xiriirsaa waalidiintaada mise ma xiriirisid su'aasha ugu dambaysa su'aasha shanaad sidee ula dhaqantaa naftaada marka aad keli tahay iyo marka aad niyajab iyo walwal iyo murugo aad dareemayso haddii aan kula wadaago xalka dhib walboo ku haysta walwal cabsi murugo rajo xumo shaqo la'aan nolosha inay ku ciisho cariirin kuugu naqato farxad oo idil noloshaada aad weyso xalka kaliya aad kaga bixi karto wuxuu yahay in aad Allah subxaanahu wa tacaala si dhab isugu xirto mar walban Allah subxaanahu wa tacaala isku dhiibto aadna talada saarato Allah subxaanahu wa tacaala dhib walboo ku haysto murug xanuun farxad la'aan raaxo la'aan rajo xumo hanyiri wax walbo dhib ku haysto Allah subxaanahu wa tacaala aad u bandhigto maxaa yeelay xal aan Allah subxaanahu wa tacaala ahayn ma lihid haddii aad meelaha ka raadiso xal kale waad lumaysaa waqti un ayaa kaa lumaya u soo laawo Allah subxaanahu wa tacaala adigoo ka baryaayo inuu ku cafiyo kuuna fududeeyo cibaadadiisa inaad sida saxda ah u gudato waayo haddii aad naqato qof Allah subxaanahu wa tacaala tala saartay iskuna xiray ma lumaysid hubaal mana dareemi doontid walwal murugo cabsi farxad la'aan waxaad noqonaysaa qof xasiloon qof degan mar walbana faraxsan isagoo xitaa waxba haysan maxaa yeelay nafta waxa ay kaliya ku xasisho ayna ku hesho reereyn iyo farxad waa digriga Allah subxaanahu wa tacaala in aad joogtayso digriga Allah subxaanahu wa tacaala kana dhigato tiirka noloshaada wuxuu kaa dhigayaa qof noloshiisu idil farxad haysta qaala Allahu tacaala alaa bidikrillahi tatma'inna alquluub Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri runtii xuska alle ayay qalbiyada ku nastaan salaada sidee isku tihiin salaada si sax ma u tukataa mise marna waa ka tagtaa marna waa tukataa mise salaada waad fududaysataa adigoo waxba haynin salaada miyaa waqtigeeda ku tukanin mise salaada way kugu culus tahay haddii salaadaada ay tahay sidaan soo sheegay marna aad tukato marna aad ka tagto bilaa khushuuc aad ku tukato salaada marna cudurdaar la'aan aad ka wada tagto salaada marna salaada waqtigeeda aadan ku tukan meesha lagaa haysto waa salaada u soo laawo Allah subxaanahu wa tacaala adigoo ka baryaayo salaada inuu kuu fudaydiyo wallahi dhalinyaro salaada wax sahlan maahan salaadu waa tiirka diinta salaadu waa nolosha macaankeeda salaadu waa barako salaadu waa daawada qofka salaadu waa xalka wax walba ku haysta salaadu ciyaar ma ahan runtii adigoo salaada oogin sida loogu talagalay in aadan u tukanin ama ka wada tagay weligaa ha sugin naxariis xasilooni iyo farxad dhalinyaro haddii aan rabno inaan helno xasilooni iyo wax walba aan jecelnahay noloshan inaan ka helno aan ku wada dadaalno salaada weliba khushuuc anagoo ku tukanayno maxaa yeelay maalinta qiyaame camalka ugu horeeya qofka laga xisaabiyo waa salaadiisa haddii uu ruuxu salaadiisa hagaagto wuxuu noqonayaa qof liibaanay adduun iyo aakhiro si aad u hesho macaansiga salaada iyo salaada inaad ku khushuucdo mar walba jameeca ku tuko si ay naftaada u xasisho Allah subxaanahu wa tacaala raali kaaga noqdo marka shanta salaad waajibka laga imaado ku dadaal sunooyinka salaada horteeda iyo dabadeeda
sidoo kale habeen walba salaatuleel tuko maxaa yeelay salaatuleelka waa sharafta mu'minka xitaa haddii aadan saqdhaxa soo kici karin inta aadan seexan ka hor tuko salaatuleelkaaga wal allah subxaanahu wa tacaala idinkiisa waad liibaanaysaa sidoo kale salaatu duxa ha ka tagina maalin walba tuko kadib arag isbeddelka noloshaada ku imaan doona waalidkaaga sidee ula dhaqantaa haddii aad ka maqan tahay xitaa qurbaha aad joogto si joogto ama u xiriirisaa waalidkaaga mise ma xiriirisid waalidkaaga sida aad ula dhaqanto waxay keensataa in ay nolosha ku macaanaato ama in aad nolosha ku ciqaabsanto haddii aad rabto inaad noqoto qof wanaagsan faraxsan degan haysto nolol fiican oo farxad leh u wanaagsana waalidkaaga haddii aad waalidkaaga kala joogtaan dunida labadeeda cirif haddii aad tahay qof waalidkiisa aan u fiicnayn caaq waalidayn ah xitaa aan xiriirinin waalidkiisa ka warhaynin mar walba waalidkiisa la soo hadlana aan waqti siinin mar walba si xun waalidkiisa ula hadla ha sugin degnaan farxad iyo nolosha in ay kuu macaanaato ogow ciqaabta raaxa la'aanta walwalka walbahaarka cabsida rajaxumada fakhriga dhibaatada farxad la'aanta waxay ka haysataa dhanka waalidka maxaa yeelay waxaad tahay caaqul waalidayn waalidkaagu haddii ay kuu nool yihiin allah subxaanahu wa tacaala u mahadceli ka ducayso ku dadaal si wanaagsan u daryeel ka warhaay mar walba ka farxi xariiri u duceey huwaal adduun iyo aakhiro allah subxaanahu wa tacaala idinkiisa waad liibaanaysaa waxaadna helaysaa barako degnaan farxad iyo nolosha in ay kuu fududaato mar walba sidee mar walba ula dhaqantaa dadka haddii aad tahay qof dabeecad xun af adag dadka maaga dadka af lagaadeeya lagana ammaan helaynin afkiisa iyo adinkiisa halis weyn ayaad ku sugan tahay ka joog xumaantaas iyo dulmigaas aad caadaysatay haddii aad noqoto qof wanaagsan dadka kula dhaqma dabeecad wanaagsan mar walbana dadka salaama haddii dhib yar dhaco ama dadka ay isku dhacaan isku daya dadka inuu heshiisiyo hadal iyo ficilba isugu daya inuu xaliyo dadka ixtiraamo dadka qofka xanuunsan booqda qofka dhibaataysan isku daya inuu wax u qabto dariskiisa u wanaagsan xaqoodana siiya huwal haddii aad noqoto qof noocaas ah noloshaada waxay noqonaysaa mid ku dhisan farxad mar walbana waxaad noqonaysaa qof dadkoo idil ay wada jecel yihiin midda ugu dambaysa midda shanaad naftaada sideed ula dhaqantaa marka aad keli tahay iyo marka aad niijab iyo murugo aad dareemayso habfikirka waagaha qofka habfikirka qofka wuu dhisaa ama qofka wuu burburiyaa haddii aad si xun u fikirto mar walba waxaa badanaysa inaad samayso ficil xun aad ka shalayso adduun iyo aakhiro haddii aad keli meel ku nooshahay ama aad jeceshahay keli inaad ahaato mar walba iska daa caadadaas kelinimadu ma wanaagsano mar walbo aad keli naqto waxaa fudud shaydaanka iyo naftaada inay kaa adkaadaan aadna samayso caadooyin noloshaada bohol ku siiridi doona naftaada waa markabkaaga haddii aad adiga fuusho yacni aad si dhab u hogaamiso meel wacan ayaad geynaysaa balse haddii ay iyada ku fuusho yacni ku hogaamiso waxay ku geynaysaa meel xun waxay ku gaarsiinaysaa heer ay xumaanta caado kuu naqato mar walba naftaada si quman ula hadal ha niyad jebinin ha ula hadlin naftaada si xun mar walba naftaada dhiirigeli ficil inuu jirkaaga sameeyo mar walba waxaa ka horaysa habfikirkaaga inuu wanaagsanaado aadna maskaxda ka korto habfikirkaaga haddii uu wanaagsanaado wuxuu ku siin doonaa shidaal aad wax walba ku qabsan karto marka aad la kulanto niyajab iyo murugo ha dhegaysan heeso hana daawan waxyaabo xunxun keliya labadan arrin soo socota samey midda koowaad kac soo weysayso 2 rakac suno ah tuko kadib allah subxaanahu wa tacaala bari huwal waad xasilaysaa waxaadna noqonaysaa qof degan xasilooni iyo farxad haysta midda labaad aad meelaha fogfog ee soo soco socodka waxaad ka helaysaa firfircooni iyo isfagaarayn waxaad noqonaysaa qof xuub dhacsaday waxaadna yeelanaysaa dulqaad tamar iyo adkaysi fikirka xun oo aan ka aaminsannahay farxadda waagaan yareen waxaan ahayn carruur iska faraxsan iska ciyaara haddii nala siiyo 1,000 shilin qofkaas maanta oo dhan ayaan sheegi jirnay anagoo jeclaanayno qofkaas ammaanayno waxaan ahayn carruur qalbi nadiif ah leh oo farxadda nolosha haysta markaa weynaanay maxaan sidaas u ahaan weynay maxaa isbedelay maxaa ugu fikirnaa mar walba lacagta oo keliya in ay farxad keeni karto dadka 80% hadda waxay aaminsan yihiin ayna iska dhaadhiciyeen lacagta keliya in farxad lagu helo mar walba dadka waxay iska dhaadhiciyaan ayna aaminsan yihiin dadka lacagta leh iyo dadka caanka ah inay farxad dhammaystiran haystaan ayna naga nasiib badan yihiin waa habfikirka ugu liita aad yeelato ma og tahay dadka lacagta leh in ay badankooda kaniini ku seexdaan qaarkoodna stress macaan dhiigkar wadna xanuun oo ay badankooda u dhintaan qaarna iyagaba isdilaan aawi farxadda aawi xaalnimada aawi hantidii aad lahayd farxad ayay keenaysaa daawadaha sharafta leh mar haddii aad haysato caafimaad firaaqana aad haysato alxamdulilah dheh mar walba farxadda dhabta ah waxaad helaysaa marka aad samayso allah subxaanahu wa tacaala wax uu raali ka yahay haddii aad mar walba yeelato habfikir noocaas ah huwal waxaad noqonaysaa qof si dhab naftiisa ugu kalsoon aaminsanna wax walba gacanta allah subxaanahu wa tacaala in ay ku jiraan kadib waxaad ku noolaanaysaa nolol qanaaco iyo farxad ku dhisan daawadaha sharafta leh inta aan kula wadaagin 5 xeer awood badan hubaal wax badan aad ka faa'iidi doonto hubi inaad nagu soo biirtay subscribe-na aad saartay channelka muuqaalkana aad like saartay una sii share gareysay asxaabtaada 5tan xeer awood leh
haddii aad samayso waxaad ku noolaanaysaa nolol farxad leh. Xeerka koowaad, jeclow naftaada. Dadka badanaa way la yaabaan marka la dhaho jeclow naftaada, waxayna dhahaan qof naftiisa aan jeclayn miyaa jira, balse si fudud ayaan kuu fahansiinayaa in aadan naftaada jeclayn haddii aad samayso waxyaabo badan naftaada u wanaagsaneyn. Tusaale yar ayaan ku siinayaa, sidaan wada ognahay dhafarka caafimaadka uma wanaagsana, balse haddii aad si joogto u dhafarto ka baran naftaada kama aadan fikirin. Maxaa kuu diiday inaad dantaada ka fikirto, daryeesho naftaada, waqti hore seexato si aad aroor hore u soo kacdo, salaada subaxna jamaacada ugu soo tukato, kadib barakada subaxii aad hesho. Midda ugu daran, balwad iyo caadooyinka xunxun waa halis, waana cudur mar walba ku dili kara. Sidaasay tahayna waad isticmaashaa adigoo og inay halis yihiin. Maxaa kuu diiday inaad gebi ahaanba iska wada dayso waxaan dhib mooye dheefka helaynin, kana fikirto adduunkaagii aakhiradaada. haddii aad rabto inaad ku noolaato nolol degnaan, xasilooni iyo farxad leh, noqo qof quman, naftiisa jecel, si wanaagsan kaga fikira, mar walbana sameeya wixii u dan ah naftiisa oo keliya, kuna dadaala wax u wanaagsan adduunkiisa iyo aakhiradiisa, ixtiraama naftiisa, weligaa qofnaha ka aqbalin bahdil, yasmo iyo qiimo daro inuu kula dhaqmo. haddii aad isqiimayso, dadka si qasab ah ayay kugu qiimayn doonaan. samayso xad aan laguu soo dhaafi karin, huwaal waxaad noqonaysaa qof xur ah, xasiloon, cabsi la'aanna ku nool, waxaadna noqonaysaa qof mar walba faraxsan. xeerka labaad, noqo qof cafis badan. haddii aad tahay qof hadallada dadka iyo ficladooda aad ay u saameeyaan, heer ay mararka qaar hurdada kuu diidaan, haddii aad wax walba si qaas u qaadato, una malayso adiga bas in lagu dan leeyahay, waxaad noqonaysaa qof gudaha ka buka, mar walbana aargudasho ku fikira. haddii aad qofkaas awooddo inaad ka aargoosato, waad ka aargoosataa mar walba. haddii uu yahay qof kaa weyn, aadan awoodin inaad ka aargoosato, waxaad u qaadaa qofkaas cuqdad iyo xiqdi, bedel habfikirka noocaas ah. cuqdad iyo aargudasho kuma siinayso farxad iyo degnaan. noqo qof cafis badan mar walba. micnaheedu ma ahan in aad dulmiga iyo gardarada qaadato, balse cafiska badan wuxuu kaa dhigayaa qof degan, mar walbana nadiif ah. waxaan idinla wadaagayaa qiso qiimo badan dhacday xilliga nebiga sallallahu calayhi wasallam. nebiga sallallahu calayhi wasallam oo saxaabada la fadhiya ayaa nebiga sallallahu calayhi wasallam saxaabadiisa ku yidhi, albaabkan waxaa ka soo gali doona qof ahlu jannaha ka mid ah. kadib saxaabi ayaa ka soo galay albaabkii. maalinta xigtay nebiga sallallahu calayhi wasallam saxaabadiisa isagoo la fadhiya haddana wuxuu yidhi, albaabkan waxaa ka soo gali doona qof ahlu jannaha ka mid ah. isla saxaabigii ayaa ka soo galay. qisadu way dheer tahay, balse meesha iyo muhiimadda aan u socdo waxay tahay saxaabigaas fadligaas isagoo nool inuu nebiga sallallahu calayhi wasallam kaga markhaati kaco dadka hortooda inuu ahlu jannaha ka mid yahay. wuxuu ku mutaystay darajadaas aadka u weyn, waxay tahay cafis. iyo marka uu seexan jiray saxaabigaas, qof walbuu xumaan laabta ugu haayo inuu isku cafiyo, laabtiisana uu saafi ka dhigo inta uu seexan. marka daawadaha sharafta leh, cafiska badan waxaad ku helaysaa mar walba naxariis, degnaan iyo farxad. iska cafi qof walbuu ku xumeeya. habeenkii inta aadan seexan ka hor, huwaal noloshaada way isbedeli doontaa, waxaadna heli doontaa farxad aad raadin jirtay weligaa. xeerka saddexaad, mar walba wax wanaagsan sameey. haddii aad tahay qof qalbi adag, dadka aan u dhimirinin inuu dadka wanaag u sameeyo iska daaye, marmarka qaar dadka xoolahooda xoog iyo xeeladaba ku qaata, ogow waddo xun ayaad haysaa, ma helaysid xasilooni, degnaan iyo farxad haddii aadan dhaqankaas xun iska daynin. sidoo kale haddii aad tahay qof naftiisa aan u rooneen, dadkan aan u rooneen, mar walba keliya marka wax la weydiisto ama caawin la weydiisto isagoo dhibsanaya waxaas u sameeya dadka, caadadaas xun iska bedel. noqo qof wanaagsan, dadka caawiya, wanaag u rajeeya, ku farxa guushooda, la farxa marka ay faraxsan yihiin. haddii aad sidaas samayso, huwaal waxaad noqonaysaa qof laabtiisa caafimaad qabta, dadkuna ay wada jecel yihiin. midda ugu muhiimsan waxay tahay mar walba oo aad qof caawiso weliba si niyad ah, isagoon xitaa kaa dalban, waxaad ka helaysaa farxad aan la soo koobi karin. dadka in la caabiyo waxaa laga helaa wanaag, farxad iyo guul aan xad lahayn. qiso cajiib ah oo ku saabsan wanaagga in uu yaraan gelin. waxaa jirtay naag aan ficnayn, jirkeeda ayay ka ganacsan jirtay. wanaag yar ay samaysay dartiis ayay janno ku gashay. ey oo oon la dhiman raba ayay waraabisay. allah subxaanahu watacaala wanaaggaas yar dartiisa eygaas ay u samaysay ayuu ugu dembi dhaafay, jannadiisana u geliyey. allahu akbar. marka walaal, wanaagga ha yaraysan weligaa. xitaa hadalka wanaagsan wuxuu daaweyn karaa qof, wuxuuna badbaadin karaa qof dhan noloshiisa. haddii aad rabto walwal, walbahaar, niyad jab, stress in ay noloshaado dhan ka tirtirmaan, noqo qof samafal badan, dadkana wax tara wax yarba ha ahaadaane. xeerka afaraad, qofnaha dhibaataynin weligaa. haddii aan Soomaali nahay, dhibka qofka loo geysto waxaan u naqaanaa oo keliya gacan qaad ama qofka xoolihiisa in aan ka qaadano. caada ahaan waxaa nagu badan dulmiga, gardarada, afligaadada, afxumada. qofka haddii uu caada ka dhigto hadal xumo, ficil xumo, gardaro, sharafta dadka in lagu xadgudbo, ma noqonayo qof degan oo xasiloon weligiisa, mana helayo farxad. waxaad arkaysaa qof uu gafayo qof kale
ama ku xadgudbaya sharafkiisa kaliya inuu comment ka bixiyey ama fikirkiisa ka dhiibtay qof uu qofkan kala taageero ama siyaasi uu qofkan kala taageero. walaalayaal dulmiga Allah subxaanahu wa tacaala naftiisa ayuu ka xarimay, ma ahan dadka inay isdulmiyaan. waxaa laga yaabaa kelimad aad qof u qortay aad iska yaraysatay inuu qofkaas ka seexan waayo. haddii aad rabto inaad liibaanto adduun iyo aakhiro, afkaaga iyo adinkaaga dadka ha ka nabadgalaan. qof aan ku aqoonin dartiisa ha u seegin adduunkaaga iyo aakhiradaada. noqo qof dadka anfaca halka aad dadka dhibaatayn lahayd. ha kulminin wakhtigaaga iyo tamartaada nooleynta qofka kale ama u danaaninta qof aan ku garanaynin. xitaa midda ugu daran ha ku bixinin hantidaada wax dadka u daran dhib u keeni kara sida balwadda iyo waxyaabaha ka sii daran. haddii aad mar walba iska ilaaliso xaqa islaameed, waxaad noqonaysaa qof degan, faraxsan, mar walbana jecel dadka wanaagooda in uu ka shaqeeyo. xeerka ugu dambeeya, xeerka 5aad, noqo qof dhanka wanaagsan wax ka eega. dhaqan ahaan waxa aan maqalno in aan faafino waan iska jecelnahay, weliba aan wax ku sii dardarno. caadiyan ma wanaagsano in ceebaha dadka la raadiyo, iska daayay in la faafiyo ceebaha dadka. baraha bulshada khaasatan TikTok wuxuu naga dhigay dad khayamkooda ka tagay. wax walba haddii aan caadi u aragno waxay naga dhigayaan dad damiirkooda dhintay, khaasatan faafinta xumaanta, dhalinta soo jarjarta, hadallada iyo ficilada anshax xumada ee TikTok. waxaan leeyahay walaal, life xumaan iyo fasaxaad ka buuxa in aad soo jarjarto bulshada aad la wadaagto adigoo views oo kaliya ka raadinaya. waxba ma dhaamid qofka waxaa samaynaya ama ku hadlaya, waadna kula jirtaa dembiga. mar walba waxaa ku wanaagsan dhanka wanaagsan inaad wax ka eegto. ogsoonow, xumaan haddii aad faafiso qof walboo daawado xumaantaas dembiga waad ku leedahay. wax wanaagsan faafi mar walba, una wanaagsan adduunkaaga iyo aakhiradaada. risiq xalaal ee raadso. haddii aad xirfad leedahay, wax wanaagsan soo gudbi. haddii aad noqoto qof dadka ceebahooda qariya, sirahooda ilaaliyo, wal waxaad noqonaysaa qof wanaagsan, qof akhyaar ah, mar walbana ka fiirsada hadalkiisa iyo ficilkiisa inta uusan samaynin. walaal, adduunyada oo keliya ha fiirinin, aakhirana mar walba ka fikir. haddii aad sidaas u fikirto mar walba, hadalkaaga iyo ficilkaagana aad miisaanto mar walba, wal waxaad ku noolaanaysaa degnaan, xasilooni, wanaag iyo farxadda aad raadin jirtay weligaa. ugu dambayn, daawadaha sharafta leh, farxaddaada ha ku xilin mar walba dadka kale. adiga farxaddaada samayso, maxaa yeelay dadka adiga ma xukumi kartid dareenkooda. haddii aad israacraxiso waxyaabaha aadan xakamayn karin, waxa aad weyn doontaa waxa aad xakamayn karto oo ah naftaada. ha gaarin heer ay ku muuqan waayaan naftaada iyo awoodahaaga. farxad iyo xasilooni haddii aad rabto inaad hesho mar walba, had iyo jeer dadka kale ka farxi adigoo beddelkaga doonaynin. xitaa haddii aad murugaysan tahay, u dhowla hadday dadka ka farxi. caruur iyo ciroole u noqo dadka mar walba qof furfuran, weji furnaan iyo wanaag kula dhaqma. wal waxaad noqonaysaa qof la jecel yahay, waxaadna helaysaa farxad aad raadin jirtay weligaa. talada ugu qaalisan aan ku siinayo waxay tahay, haddii aad rabto inaad noqoto qof faraxsan mar walba, maalin walba ku soo marta qur'aanka akhri, la saaxiib qur'aanka kariimka. hal maalin ha ka tegin inaad akhrin weydo qur'aanka. joogtay akhrintiisa, ugu yaraan maalin walba ka akhri hal jus ama hal xisib ama hal bog. wal waxaad ka helaysaa qur'aanka kariimka degnaan, xasilooni iyo farxad aad isdhihi jirtay ma heli doontid weligaa. haddii aad halkan nala soo gaartay aad u mahadsan tahay. haddii aad ka heshay muuqaalkan, like saar, la wadaag asxaabtaada oo sheer dheh. intaan muuqaalkan la xidhaa ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo horumar.